magaciisa ninkaasi wiilkaad u dhashay magaciisa runta Qiso Joshua Qiso Joshua waa tahay marka daadiisa imisaad ku qiyaasi kartaa adiguna aniga daadiisa ma qiyaasi karo adiga daada aabbaha kale ahaa konton xoogaa jir waa hagaag haddaba haddii aan ku weydiiyo Nimco sidee ku bilaabatay xiriirka adiga iyo ninkan idin dhex maray Nimco Umar Ibrahim waa gabar Soomaali ah oo ay si qasab ah ku guursatay askari Ugandes ah taasoo ay uga gol lahayd in ay aabaheed ku badbaadiso inta aanan u guda galin barnaamijkeena halkani waa hadafside fadlan haddii ay tahay markii kugu horeeday aad soo booqato janaalka please subscribe noo saar gambaleelkana furo si aad u noqoto daawadaha ugu horeeya ee la socda barnaamijyada xiisaha leh ee aan halkan idinkugu soo gudbino aaga saddexan inaad igu bilowdo magacayga saddexan waxa la Nimco Umar Shiqaal waa tahay marka daadaadu waa imisa Nimco 24 sano jira 24 jir baa tahay waa tahay dadka qaarkood waxay daadaada ku sheegayaan ilaa 19 20 sano ma jiraan 24 sano jira waa tahay magaciisa ninkaasi wiilkaad u dhashay magaciisa runta Qiso Joshua Qiso Joshua waa tahay marka daadiisa imisaad ku qiyaasi kartaa adiguna aniga daadiisa ma qiyaasi karo adiga daada aabbaha kale ahaa konton xoogaa jir waa hagaag haddaba haddii aan ku weydiiyo Nimco sidee ku bilaabatay xiriirka adiga iyo ninkan idin dhex maray xiriirku wuxuu ku bilaabay nin dhakhtarka aabbaha ahaa wuxuu yiri maxaa la hadii aragtid inaad ku daaweeyo aabbaha inuu isbuuc ku jirno in maxaa la aad ku guursado waa tahay marka ma isbitaalku madax ka ahaa mise ciidamada isbitaalka joogu ahaa mise dhakhaatiirtu ahaa mise kalkaaliyu ahaa horta ninku marka hore muxuu ahaa aniga ciidamada ma kala aqoon xilli markaas toolo qof mashquulsan ahaa laakiin sidoo asii uu sheegay nin oo madax u ahaa oo islaamayo ahaa waa tahay marka markii ugu horreysay isbarateen xaggay ahayd yaa kula joogay maxaanad ku wada hadasheen aniga isbuuc amal ku jirno oo ninkan wuxuu yiri maxaa la daawada intuu isii warqad orod suuqa bakaaraha ka doon suuqa bakaaraha marka daawada ka doon waxa la muqdisho dhan ma taalo Soomaaliya dhan ma taalo daawadaas haddii taalana waxa la gadaa $150 ma laga helo daawada marka u soo noqday oo dhahay daawada ma laga helo Soomaaliya waa ogaay yiri daawadaas inaan laga helin Soomaali ee oolin marka saa inaa aragtidan kugu diray marka dhahay markaan dhahay warqada waa la igu dili gaareen nimanka al-shabaabka ah igu dili gaareen maxaa igu dirtay markaan dhahay wuxuu yiri inaa ku soo tasaal qaaditidaan rabay ani warqada aragtid daawada aabahaba ayay maadaama uu xanuunsanayay waxa la yiri daawadan waa tii bogsiin lahayd isaga daawada kansarka ee marka daawada magaceedii ma xasuusataa warqada wuxuu kugu qoray أنا ما حسست أنا من أقون أملي داود أسمع هذا. واتا مركا كسو ويدي سوقي بكارها يسقط كسو نقطي وحكو يدوان وقايانة كي. أصيلا دبوا سو نقطة أصيل مركا كسو نقطة ويصير وقاي يرد إن داود أن أول سومالي مركا يصير داود واها يا ويري لكن هذا قصينا وشروط يرد مركا شروط بس أكثر بحزان قصينا مركا هذا شروط محاول ويصير وحاربا ويري إنه قرصده مركا قرصدان داود أنا وير عباس أنا مركا جور جديدا وفي يقرأ ورقد ومحل أنا لو بحنايو هذا ومركا صوص هذا أنا لو بحنا بناك ما لو بحنا. واتا مركو كلية هاي وحن دونا يينا كوجورسدو ما أبا هرتيسو كقولها اللي مسمى الجارة تكتين. ما ناش أو دقق وليج وعبرو وحسيس كيسة. واتا محد سكو فهميسين مركا لقديت كود هدليسين. واحد جوجيل سومالي أو ترجمان. دبتنا واحد ترى ورقد بالله صوص صاري أباها إسبتال كلوجا صاريو. ورقدي أنا لسيه ورقدي مركنا لسيه نوير ترجمان كثير محلها كثير سهل كان كثير في كل استيل أباها بحنين مركد دنبنا وأقلاد يعني. مركا inaad ogolaato ma wiilka turjubaankuna qalqaalo uu ku galiyay si aabahan lagu saarin in ninkan aad guursato waa tahay marka maxaa dhacay markii oo aan yeelay oo ninkan aan guursado aan yeelay daawooyin badan oo aad siiyay wuxuu u sameeyay baasaboor oo lagu soo qaadayo guurkiinu sidoo u dhacay bal arrintaas aan doonay inaan ogaado sidoo u dhacay guurku wuxuu u dhacay ninka oo turjubaanka ahaa wuxuu keenay laba nin oo maxaa la dhahaa Soomaali ah wuxuu yiri aniga muslim ma ahay وأنا قرصنا دين إسلام كقرصنا حتى وفي يقانا قرآن كيقانا مركي أنا قرآن كم وأقرنا يعني ممرنا وأقرنا يا ممرنا ما أقرنا. واتاي حق اللي جوجو مهري هذيكم ماشي واحد تروى مال عيدان وأنا إسبيتال. مال عيدان إسبيتال أو ماشي
teendooyinka lagu meheriyey marka meherka adiga markii lagu meherinayo labada wadaadii ma ag fadhiday waa ag fadhiyey marka raalli baad ka ahayd raalliyaa ka ahaan waa tahay aabbaha iyo faamilkiinu ma kula ogaayeen maya lama ogeen familkeena maxaa yeele ani aabbahe intuu dhal anaa uweyn anigaa go-aankas iska gaaray si ugu hela aaba daawadiisa aaba daawadiisa helitaankiisa kasokow adigu soo gabarh ma tiidoo soo xitaa sharcigii muu ahayn in lagu bixiyo ama haddaanu aabahaa joogin adeerada ama qof walaayadaada haya inuu bixiyo soo may ahayn way ahayd laakiin ayaga ninka turjuwaanka iyo nimanka oo meherka sameynaya waxay dhaheen haddaa guur hore usoo martay oo ku mehersantaa ninkan marka horaad sheegaa guur hore ma usoo martay hayaan dhaha guur hore usoo maray marka guurkaagii hore imisuu qaatay carruurna ma ku dhashay 2 wiil marka teendadii baa lagugu dhex meheriyey teendadii lagu dhex meheriyey ku dhamaan daawooyin fiican oo aaba siiyey iyo maxaa la dhahaa si fiican ugu dadaalay waa tahay marka intaanan dawada gaadhin meherkaasi markuu dhacay dareenkaagu siduu ahaa ani dareenkay ma ku faraxsaneen waxa ii jeesa waxa waaye daawada keliya la aaba rabitaankiisa marka ma aroor ninka ma ku faraxsaneen ma aroor baa lagu meheriyey qof taqaanidaa ku faraxsanta ma aroor baa lagu meheriyey mise galabaa la meheriyey dabeete maxaa dhacay markaa waxaan ma dhicin waa lagu meheriyey labis nimanka wadaadada lacag siiyeen uu siiyey asi iyo ninka turjuwaanka ahaa sidii ku bax marka adigu nimanka securityka oo meesha ka shaqeeyo waxay dhaheen maxaa la dhahaa arrimaa jirta aan maqalnay intay securityka oo wax iweydiinay su-aal iweydiina asaa i imaada wuxuu yidhi wixii lagu weydiiyey waxba kama jiraan dheh waa tahay marka meesha lagugu meheriyey wadaadaday iska baxeen lacagtooda qaateen adigu ma ninkii lagugu meheriyaad la hadhay ood la joogtay meherka markuu dhaca hore ninka miiga tegin ani waxaa ku noqda aabbaha ku noqda beriid kasoo noqda ka dambeysay waa marka ii wacwaxaay marka wicitaankii maalmaha ka dambeeyaad kulanteen imise jeer sidaad u kulmi jirteen ninka marka ma meeshuu degan yahay baad la degtay mise kolba xeradu joogay iyo meesha isbitaalkaad ugu iman jirtay meesha teendada oo daawada uu ku bixinaayo oo daawada markay cidlo ay noqotay wici jiray uu dhihi jiray imaam waa tahay habeenka aan diido oo ka indha adeego oon diidana wuxuu dhahaa sidii daawo aaba ma siin jirin marka anigoo qaxana aan inta raaci jiraa oo wuxuu rab iga samaysan jiray marka uurka waxaad qaaday intuu aabbahaa noolaa intuu aabba noolaa markaad aabbaha muxuu xaaladiisu ku dambaysay markii ninkii aad ka ogolaatay inaad guursato waxaad tihi dawooyin baa la siiyey aabbaha xaaladii aabbaha maxay ku dambaysay aaba xaaladiisa sida daawo hadday noqoto daawo fiicana la siiyey laakiin waktiga u dhinta aaba marka aaba wuu geeriyaadaa ilaahay ha u naxariisto dabeete adiga maxaa kugu dhacay marka ani dhibaatooyin badan aan la kulmay dhinaca al-shabaabka soomaaliya waa tahay familkaaga markaad eegto adeerada ama habaryaraha iyagu ma ogaadeen in aad nin guursatay ciidamada amisom ka tirsan oo ugandaysa way ogaadeen hooyo iyo walaalahay way maqleen maxay dareemeen marka hooyii markaa u sheegay arrintaasaa u sheegay hooyo igama xumaan hooyo waxay ogeed arrinta lacag la-aanta neesta iyo marka waxay dareemayeen in duruuf markaa jirta darteed aad u gashay arrintan waa tahay marka nimco xageed ku umushay marka maxamar baad ku umushay mise waxaad ku umushay kambala soomaaliya ku umulay imise jir weeye marka waxaa la ii sheegay inaad dhashay wiilkaaga waa imise sano iminka wiilkayga wuxuu jiraa sanadii 5 bilood jiraa waa tahay marka dee reerkiina waxaad igu tiri soomaaliya joogaan iminka hooyaday walaalay soomaaliya joogaan aniga falkaas sameeyey darteeda qaab loo marsiinooya iyaga maxaa soo gaaray marka iyaga maxaa lagu sameeyey ayaga dhibaatooyin badan ay la kulmeen hadda wiil walaalkii xataa waa la la'aa inay wateen ciidamada al-shabaabka lama yaqaano mid way xirteen wuu u xirnaan jir iyo hooyo way u xirnaan jirtay qaaka hadda way fiican yihiin waa tahay marka dhibaatadaasi adigana kugu dhacday faamilkaagana la gaarsiinayo kulley qadarta eebana way ku dhacday laakiin adna sababteedaad lahayd marka maxay kula tahay baad u malaynaysaa markaad dhibaatadaasi eegto faamiligaad gaarsiisay ee madaxaaga ay ku dhacayso ma waxun baad samaysay mise wax wanaagsan baad samaysay ani mid haddaa fiiriyo wuxuuna sameeyey waalidka iyo hooyada walaalaha iyo hooyada laqa qabsanayo way dhibaysaa mid haddaa fiiriyona wax fiicana sameeyey aabe iyo ciddeen wax la-aanay ahaayeen marka saasoo ogolaanino waa tahay adiguna waad ogeyd in ay marxaladda soomaaliya adag tahay ciidamada ajanabiga meesha jooga la xiriirkooduna uu dhibaato badan keenayay marka miisaankaad isi saartay inaad aabbaha badbaadiso oo aad arrinta ninkan ka ogolaato iyo cawaaqibka ka dhalan kara weli ma xisaabtantay mise waxaa markaa kula weynaa xanuunka aabbo xanuunka aabba ila weynaa
waa hagaag marka reerkiina hooyada markay ogaadeen waxan iyo dhacdadan dhacday ma ku garab istaageen mise waxaad kala kulantay inay kaa hor yimaadaan oo ay ku canaantaan maya hooyada iyo walaalay aadi ii garab istaageen markastana way iisoo duceeyaan qur-aanna way iisoo akriyaan hooyada iyo walaalayna way fiicayiin waa tahay haddii aan ku weydiiyo kolley xamar adiga ogaa ciidamada amisom iyo dadkay daweyn jireen iyo xiriirka ka dhaxeeya ma jireen ma dhici kartaa in dadka qaarkood ay isweydiiyaan inay jireen hablo kaloo sidaadoo kale ah oo ay ciidamada xiriir la lahaayeen maya ma jirin ciidamada markaa kasoo tegaayana ma jirin halaas ma jirin 100% ciidamada amisom way fiicnaa asiga keliya qaladkaas galay dadku way daaweynayeen nabadgelyo iyo daawo bay bixinayeen marka maxaad dadku u sheegi lahayd si dabcan inkastoo ay dadku isku mid ahayn oo haddaad codkaaga soomaalida u gudbin lahayd maxaad dadku u sheegi lahayd arrinteeda wax been ah malahan waxaa madaxweynaha malahan soomaalina qofna ama soomaali ama qofkan ha noqdo kamar oo sharaf waxaa sharaf ah ka rabo oo sumcad ka rabo oo inuu ii duceeyo aaraba aabeeyo ahaa aabeen allah u naxariisto dadka iga fikirsan inaan qof xun ahayna miihi ani qof xun waxaa isku haystaa inaan ahay gabdhaha ugu fiicanna ahay fadlan la soco qaybta kale aan halkan idinkugu soo gudbin doono wareysi kale aan la yeelan doono gabadha dhibanaha ah please subscribe saaro haddii aad hilmaamtay si aad ula socoto qaybta xiisaha leh aan halkan idinkugu soo gudbin doono wareysiga gabadha dhibanaha ah iyo askariga Ugandeska ah